waa beri baa laga soo soocay waxa kale oo laga soo soocay General Daawud koox la yiraahdo oo Hargeysa joogtay kamid ahaayeen Cabdi Kaamil iyo Cabdiraxmaan Dheeri iyo Maxamed Dheeri iyo ragla dheer baa la soo xulanayay marka kooxaha laga soo xulanayay wixii kale dibadda laga soo qaadanayay markaas Ciid Saalax iyo Maxamuud Diirshe iyo Yuusuf Xaaji Aadan Qabiile iyo intaasina waxa ay ahaayeen adoo maamulka filimka dadka maamulaya ahaayeen marka imse meelood baad ku dhigteen filimkan waxa lagu dhigay meeshii uu sayidku lagu dhigayba waa la tagay sida Taleex sida Berbera filimkan yaa sameeyay yaa ka qayb qaatay waxa ka qayb qaatay inta badan kooxihii markaa jiray ama waa beri ahaa ama General Daawud ahaa ayaa ka qayb qaatay iyo dad kale oo laga soo ururiyay sida ninka sayidka matalayo oo kale intaan filimka galin ma tababar baa la siiyay wixii la dhigayay iyo sheekadii baa looga sheekeynayay buuga qoran baana la raacayay qoraalka nin walba wuxuu oranayay haduu gabay yahay haduu geeraar yahay haduu hadal tiraaba yahay nin walba waxa uu qoran wuxuu matalayo waxa uu qoran baa loo sheegay dad inta leeg baa filimkaas ka qayb qaatay oo Soomaaliya dadkii aad wada jilayseen yaa ka xusuusataa dadkii aad wada jilaynay waxaan ka xasuustaa Allah naxariista Cabdi Kaamil Maxamed Dheere Maxamed Cismaan Cabdiraxmaan Dheere Cabdiraxmaan Cismaan kale oo iyaguna magacyadooda hadda ayaan ilaaway oo niman dhowr sano laga joogaa kii kale iyaguna meesha qaban qaabada iyo logistika iyo buuga haye buugan qoraalka haye kolba baarka la marayo baarkaas weeyaan lahaa hebel baa baarka leh lahaana waxay ahayn Ciid Saalax iyo Yuusuf Xaaji Aadan iyo Maxamuud Diirshe ma Soomaali baad wada haydeen mise dad ajnabiyana wada kala qayb qaadanayay ma waxa duubay filimka Hindi bay ahaayeen markii dambana markii la dhameeyayna waxa loo qaaday Bombay yaa loo qaaday niman baa markaa ka daba tagay oo si ay u eegaan wixii la duubay iyo waxay sida isku hagaajiyeen eegayay iyo sheekadii sida wax xiriirsaneed eegayay iyo sida loo duubay eegayay shahadan hoostaala ee tiri xilligaas la siiyay ku qoran tahay 1984 yaa la siinayay ma dadkii ka socnaa baa la siinayay gidi waa la siiyay waxyaabaha sameynaysa wax ma ka xusuusataa waxaan ka xusuustaa iyadoo nala soo galay oo aan meeshii rasaasna lagu furay oo ciidankii Ingiriiska soo galay oo ku dhintay meeshii ku dhacay dadkii meydkii ayaan xasuustaa hadalacaynkaas iyo muuq iyo mudaharaad baan sameeyeen xilliga waa dhimatay warkaas waan dhintay xilligaas laakiin filimkaas lama arag oo lama maqal sidii loo qaaday ee loo geeyay Bombay iyadoo editingkii iyo wixii nimankii tageen ay soo noqdeen oo mar kale inay tagaan ahayd ayay wada filimku ciyaar ma ahayn wax muddo badan baa la haynayaa oo la rogayaa la idinkareynayaa marka waqtigii balaayadu dhacday Soomaaliya balaayadu ka dhacday ka soo gaaray waakii dalku burburay marka cid dambe dib u doonatay ma jiro cid dambe dib u doonatay ma jiro Djibouti wax laga helaa iga maqala